munaasabaddan ballaaran ee aan ku soo dhaweynayno kuna sii sagootinayno saaxiibkay Xabiib Ciga Xasan oo ahaa agaasimihii telefishinka Home Cable ee gobolka Togdheer. Xabiib Ciga wasaaradda arrimaha gudaha maanta way haleeshay inay Xabiib Ciga ka dhigto gudoomiyaha degmada Qoryaale. Xabiib laba sifo wanaagsan buu leeyahay oo tawaanin ka baxay kulliyadda horumarinta ee jaamacadda Burco Community Development ee arrimaha bulshada. ninkaasi maamulka aad iyo aad u yaqaana maanta degmadaasi way heshay qofkii ahaa inuu maamulo sababtoo nin deegaankiina ka soo jeeda wax badan ka garanaya baahiyii dadka maantana ka midka ahaa hormuudka saxaafadda Soomaaliland maantana inuu noqday role modelkii dhalinyarada iyo warbaahintaba oo siyaasadii galay salaanka siyaasaddu waa step ma aha meel saro lagu haado laakiin maanta seeskii hoose hadduu Xabiib ka soo bilaabay waan uga mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadka deegaanka u gartay inuu boos ka qabto. marka mid kale uu leeyahay ninkaasi dulqaad iyo samir uu leeyahay intaan soo wada shaqeynay wax deeqarada kuma arag wuxuu aan nin dulqaad iyo isku haynta dadka iyo shaqaalahaba aad iyo aad u yaqaana muddadaan wada shaqeynayna waxa leeyahay saaxiib si wacan oo gobonimo leh ayaan nolol shaqaysay maantana waxaan filayaa inay degmada Qoryaale heshay mas'uulkii ugu habboonaa ee maanta hadii loo maamulka warbaahinta ka dooru magacaw oo ninka anigu dooran lahaa. marka saaxiib waxaan ku leeyahay hor u soco halka meel ka sareysa dadka deegaanka ee maanta lagu magacaabayna inaad halka iyo meel ka sareysa gaarsiiso wax qabadka degmada aad sare u soo qaado. annaguna waxa ku leenahay sidaan walba kula shaqeynay ee ku garab taagnayn haddaan warbaahinta nahay ayaan maanta ku garab taagana aad iyo aad saamaya.